bismillaahir rahmaanir rahiim jimco wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka National TV aad ku daawan doontaan waxa kamid ah khilaaf culus oo salka ku haya liiska xildhibaanada iyo senatarada oo ka dhex qarxay guddiga doorashooyinka federaalka iyo Villa Soomaaliya oo qaaday tallaabo lagu carqaladeynayo doorashada warbixin ayaan idinkaga hayaa gudoomiye Muuse Geelle oo xilka qaadis ku sameeyay xogaahiyii guddiga FID oo ka hor yimid tallaabo uu qaaday guddiga wararkeena kalena waxa kamid ah garoonka diyaaradaha iyo xerada xalane oo maanta xiraad lagu soo rogay kadib amni xumo laga sheegay iyo xukuumadda Soomaaliya oo soo dhaweysay go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midooba uu ugu codeeyay howlgalka ATMIS qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan waa Jimco 1 Abriil sanadka 2022 u diyaar garoowa faahfaahinta qodobada aad daawateen waayahay markale kulan wacan aan ku bilaabo warkeena warar aan helayno ayaa sheegaya in khilaaf culus oo salka ku haya liiska xildhibaanada iyo senatarada uu ka dhex qarxay guddiga doorashooyinka federaalka iyadoo Villa Soomaaliya ay qaaday tallaabo lagu carqaladeynayo doorashada warbixintan soo socota ayaan ku eegaynaa khilaaf culus ayaa soo kala dhexgalay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal ee FID kadib markii ay isku qabteen liiska xildhibaanada iyo senatarada la siinayo shahaadooyinkooda rasmiga ah ee xubinnimada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle Yuusuf ayaa xilka ka qaaday xogayaha guddiga Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan kadib markii uu qaaday tallaabo uu khilaaf ugu dhex abuurayo Cabdiraxiin Xiirane ayaa xalay ka hor yimid liiska ka soo baxay guddiga doorashada ee xildhibaanada baarlamaanka 11aad kaasi oo laga reebay xubno uu ugu caansan yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaana la rumaysan yahay in Cabdiraxiin uu ku xiran yahay Villa Soomaaliya qoraalka gudoomiyaha FID ayaa lagu sheegay in xogahayaha uu isku dayay inuu carqaladeeyo doorashada soo saarista warqado aan sax ahayn iska horkeenista guddiga dhexdiisa iyo hanaanka geedi socodka Cabdiraxiin Xiirane ayaa xilka xogayaha guud ee guddiga FID loo magacaabay 14 Febraayo ee sanadkan 2022 gudoomiye Muuse Geelle ayaa shalay shaaciyay liiska xildhibaanada ay shahaadada aqoonsiga siinayaan waxaana laga reebay Fahad Yaasiin oo kursigiisa Hirshabeelle yahay iyo 3 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed Muuse Geelle ayaa ku dooday in guddiga oo amray in aan la qaban doorashada kuraastan ay iska indhitireen guddiyada doorashooyinka dadban heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxa uu sheegay in guddigooda mas'uuliyadda saaran ay tahay hubinta xildhibaanada iyo senatarada gudbinta xogtooda oo dhameystiran iyo in xogahaynta labada gole uu ku wareejiyo dhammaan macluumaadka uu hayo go'aanka ayaa gilgilay Villa Soomaaliya waxaana xalay durba bilowday isku day lagu kala furfurayo guddiga ama ugu yaraan muran loo gelinayo tallaabada uu liiska ku soo saaray guddiga ma cadda hadda tallaabada xigta oo ay qaadi doonaan Villa Soomaaliya balse waxaa suurtagal ah inay markan adeegsadaan maamul goboleedyada ku xiran ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo horey u sheegay in guddiga aanu shaqo ku lahayn dhaarinta xildhibaanada cusub khilaafaadka xubnaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa taagan dhowr jeer waxa ay isku qabteen go'aano la xiriira doorashooyinka iyo joojinta kuraas la shaaciyay balse aan la dooran waxa jira tira dhiman oo aqalka hoose ama golaha shacabka ah oo tiradu dhan tahay 26 xubnood iyo 4 xubnood oo kale markii la isku daro guud ahaan ay isku yihiin 30 xubnood waxaan iyadana ka codsanaynaa insha Allah in ay si dhaqso ah loo soo dhameystiro si ay uga qayb galaan doorashooyinka afhayeenka aqalka iyo doorashada madaxweynaha anagoo ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxaan u cadeynaynaa xafiisyada kor aan ku soo sheegnay in aysan jirin liis rasmi ah xildhibaanada la doortay oo guddiga ka soo baxay guddigu weli wuxuu ku howlan yahay ururinta dhammaan
xogta xildhibaanada la doortay ee labada aqal. Waxaan caddaynaynaa in liiska uusan ka soo bixin guddigu. sidaa daraaddeed iyadoo howsha doorashadu ay marayso heer gabagaba ah waa tahay intaan ka bixin wararka guddiga doorashada, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa u hambaliyeeyay guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID oo xalay shaaciyay natiijada doorashada mudanayaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Rooble ayaa sidoo kale ku bogaadiyay dowlad goboleedyada, guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed, SID iyo guddiga xalinta khilaafaadka shaqadii adkeyd ee ay soo qabteen. waxa uuna rajaynayaa in ay doorashada xildhibaanada dhiman ee wadartoodu tahay 30 golaha shacabka ah loo soo dhammaystiro sida ugu dhaqsiyaha badan. ra-iisul wasaaruhu waxa uu hambaliyo iyo duco u dirayaa xildhibaanada cusub ee la shaaciyey, isagoo u rajaynaya in eebe ku garab galo mas-uuliyadda loo igmaday ee samata bixinta dalka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Rooble. Rooble ayaa ugu dambeyn guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID ku adkeeyey in ay ku taagnaadaan hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada oo ku eg 14 Abriil si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee FID ayaa xalay ku dhawaaqay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka, kuwaasi oo lagu soo kala doortay maamulada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir. dhammaan liisaska xildhibaanada laga soo doortay dowlad goboleedyada ayaa la soo bandhigay iyadoo laga reebay xubin uu ugu muhiimsan yahay la taliyaha farmaajo ninka lagu magacaabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. waxaa kaloo liiska koonfur galbeed laga reebay 3 xildhibaan oo kuraastooda khilaaf ka dhashay lana joojiyey, sida kursiga uu dacwada ka keenay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, kursiga uu dacwada ka gudbiyey wasiir jaamac iyo kursiga ay ku soo baxday Sareedo Maxamed Cabdalla. waayahay markasta nagala soco National TV waxaad ka heli doontaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. qodobada kale ee wararkeena haddaan eegno, taliska guud ee AMISOM ayaa qoraal ay soo saareen ku shaaciyey in maanta gebi ahaanba la xiray lana joojiyey dhaqdhaqaaqa gudaha ee garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo qeybaha kale ee xerada Xalane oo ay degan yihiin ajaanibta iyo diblomaasiyiinta dalalka saaxiibada. warqad ka soo baxday AMISOM oo aan helnay ayay AMISOM ku sheegtay in baaritaan culus iyo xaqiijinta amniga garoonka diyaaradaha iyo xerada Xalane ka fulinayaan si loo sugo amniga goobahaasi oo toddobaadkii hore weerar dhaliyay dhimasho iyo dhaawac ay ka geysteen dabley hubaysan. shirkadaha, ganacsatada iyo ajaanibta degan xerada Xalane ayaa lagu wargeliyey in maanta wax dhaqdhaqaaq ah jirin, waxaa keliya loo fasaxay gudaha garoonka dadka duulaya iyo kuwa soo degaya. AMISOM waxay sheegtay in shaqaalaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah la marsiin doono baaritaan culus kadibna la fasixi doono, ayada oo intaasi ku dartay in shaqada garoonka ay caadi ku soo laaban doonto 2 Abriil. tallaabada ay qaaday AMISOM ayaa imaanaysa ayada oo tuhun badan oo weli ku hareereysan yahay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen garoonka toddobaadkii tegay, kaasi oo la rumaysan yahay in la fududeeyey. gabagabada wararkeena ayaan soo gaarnay. ugu dambeyn, war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu bogaadiyey go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku ogolaatay in howlgalkii midooda Afrika AMISOM oo 15 sano ka socday Soomaaliya loo bedelo ATMIS. qoraalka ayaa lagu sheegay in qaraarka tirsigiisu yahay 2628 2022 uu muhiim u yahay Soomaaliya si loo ilaaliyo howlgalka ATMIS loona fuliyo howlgalo ka dhan ah al-shabaab si looga saaro deegaanada ay joogaan. dowladda federaalka waxay soo dhaweynaysaa in qaraarka golaha ammaanka ee ku saabsan waajibaadka cusub ee howlgalka midooda Afrika ATMIS uu si wadajir ah u meelmariyey, ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda. dowladda federaalka waxaa ka go'an inay si buuxda u xaqiijiso wareejinta mas'uuliyadda amniga ee ATMIS oo lagu wareejinayo ciidamada ammaanka Soomaaliya, ayaa la sii raaciyey qoraalka. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in waajibaadka saaran howlgalka ATMIS uu noqonayo ka hortaga khatarta sii kordhaysa ee al-shabaab iyo in la abuuro ciidamo badan oo guurguura si ay u taageeraan kuwa ammaanka dowladda federaalka. qorshaha ATMIS
waa in si tartiib ah loo dhimo ciidamada amisom si loo xoojiyo askarta federaalka oo loo diyaarinayo in ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka. sidoo kale howlgalkan ayaa diyaarinaya ciidamo guurguura oo fulin kara howlgalo kala duwan. warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV daawadayaal wanaga inta ku kulmi doono wararkana soo socda waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.